Soomaaliya ka dhigi kara dawlad nuclear haysata waa maadada uraniumka. Maadadani waa maadada ugu muhiimsan ee nuclearka laga sameeyo haddii farsamo iyo cilmi lagu daro. Maadadani uraniumka haddii laga dhigo mid qani ah, si toos ah wadankii uraniumkiisii qani ka dhiga, si toos ah ayuu nuclear u samaysan karaa. Tanina waa waxa maanta Iran lagu haysto. Waxaa laga hortaagan yahay in Iran maadadeedii uraniumka in qani ay ka dhigto. Sababaha cunaqabataynta iyo heshiiska nuclearka ee Iran waxa uu la xiriiraa mawduucani. Soomaaliya maanta si gaar ah Dinsor, Galgaduud, Ceelbuur, Dhuusamareeb aagaasi oo dhan waxaa ka buuxa oo laga heli karaa maadadan uraniumka. Waxaa lagu qiyaasay maadadan uraniumka ee Soomaaliya in ay la eg tahay 10,200 oo ton. 7,600 oo ton oo kamid ah uraniumkani waa kuwo dib ganacsi ahaan loo isticmaali karo. Tanina waa macluumaad iyo baaritaan la sameeyay xilligii dawladii hore. Maanta haddii baaritaan xoog leh lagu sameeyo wadanka intiisii badan, waxaa macquul ah tirada in halkani ay ka sii badato. Haddii baaritaanadani ama hantidan uraniumka ee laga helo gobolada Soomaaliya dollar ahaan loo bedelo qiimaha maanta, waxa ay la eg tahay halkii kiilo ee uraniuma. Si kastoo ay u kala duwan tahay hadba nooca qofka uu rabo iyo qiimaha iyo waxa uu ku sameynayo uraniumka kiilo ahaan, waxa ay adduunka ka joogtaa halkii kiilo $25. Soomaaliyana 7,200 oo ton ah oo uranium ah haddii laga helo, marka lagu dhuftana 7,200 oo kiila $25, qiimuhu waa $180 milyan oo dollar. Waa marka aan xisaabinay halka ugu raqiisan. Waxaadna halkani ka arki kartaa hanti aad u badan oo qiimo badan ku fadhisa, iyada oo aanan laga faa'iideysanin dhulka iyo buuraha in isaga dhex jirto. Arinta kale ee la yaabka leh ayaa waxa ay tahay Soomaaliya haddii shidaalkeedii ay soo saarto, sidoo kalena shidaalkeedii dunida ay ka iibiso, maadadan uraniumkana haddii qani ay ka dhigto oo ay ka faa'iideysato, nuclearna sidaa waa ay ku samaysan kartaa. Quwad caalami ah oo si degdeg ah shidaalna haysata, dhinacna nuclear haysata ayay Soomaaliya muddo aad iyo aad u sahlan ay ku noqon kartaa. Wadan aanan laga filanaynin waxyaabahani oo horumar ah si kadis ah dunida oo dhan ayay xataa taariikhda ayay fajac ku noqon kartaa. Ma jiri doono wadan lamida horumarka aanan caadiga ahayn ee Soomaaliya muddo kooban ay ku tillaabsatay. Waayo dunida kale marka Soomaaliya laga hadlayo, waxa ay dadka in badan oo kamid ah la barbar dhigaan wadamo kale oo Afrika oo dadkiisa iyo dalkiisaba dawlado kale oo ajaanib ah iska haystaan, iyaga oo aanan wax falcelin ah aanan samaynin. Soomaaliya se haddii caqligeedii iyo cilmigeedii ay isticmaasho, khilaafkuna iska yarayso, horumarkani sidii looga faa'iideysan lahaa haddii waqti la geliyo, dunida oo dhan xitaa taariikhda ayay baal dahaba ka geli kartaa. Wadan haysta shidaal haddana haysta hubka nuclearka sida Ruushka oo kale, quwad caalami ah oo shidaalkiisii aanan lagu soo xadgudbi karin ayay noqon kartaa. Adduunka oo dhan wadan si gaar ah looga xishmadeeyo, halka Carabtuna shidaalkoodii maanta quwad kale oo saddexaad oo Maraykan ah uu ilaaliyo. Ma haystaan nuclear iyo maado laga sameeyo, mana aysan helin Carabta waqti iyo xilli ku filan oo dhanka iyo hubkay iska dhisi karaan.